وأنه أنا نول بيقول هذا مو بنتي marka waan maqlay laakiin aniga aakhirada bay si xasuusiyeen iyakana ilaahay ha u daba dhaaf aamin dhahada dhalinyarnimada alla gashay allah anaga xageega waa cafis ilaahayna ha u daba dhaaf allahu zamankan waa cajiib weeyaan marka buu nabigu macneeyo xishoodka ilaahay jalla wa ala la doonayo adoonku inuu ka xishoodo waxa weeyaan madaxaya wixii uu weeleeyay inaad ilaalisid calooshii hareeraheega wixii ahaadana inaad ilaalisid inaad aakhirada aad xasuusatid oo qabriga balaayada kugu sugaysa iyo fitanta qabriga kugu sugaysa inaad xasuusatid waman araada alaakhirata taraka ziinata addunya qofka aakhirada doona buu nabigu leeyahay adduunyada ziinadeeda iyo quruxdeeda iyo birbirkeega uu ka tagaa buu rasuulku yidhi الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلهي بانكم هذين إلا صلاة مغرب جمعين نقص وقيم قليل waa nicmo ilaahay na siiyey inaan ilaahay ugu mahadnaqno weeyaan wain tacuduu nicmata allaahi laa tuxsuuhaa ina alinsaana ladaluumun kafaar baa ilaahay yidhi ilaahay casa wajalla nicamtiisa haddaan isnidhaana tiriyo tiro ku soo kooba ma soo koobi karayno halka insaankan uu yahay daluum mid naftiisana dulmiyey oo dulmi geysto badan kafaara oo ilaahay nicamtiisiina qariyey oo daboolay wain tacuduu nicmata allaahi laa tuxsuuhaa wa ina allaha lagafuurun raxiim waa laba aayadood labada aayadood inta hore waa isku macno weeyaan laakiin inta dambe waa kala macnohooga waa kala duwan yahay aayadda hore wuxuu ilaahay ku sheegay insaanka ayaa la sifeeyey waa daluum waa mid dulmi geysto badan oo naftiisii dulmiyey oo xaqii naftiisu ay lahayd garan waayey xaqii ilaahay ku lahaana garan waayey xuquuqda bini aadamkana garan waayey dulmi geysta badana weeyaan waa kafaar weeyaanoo ilaahay casa wajalla nicamtiisiina uu qariyey oo uu daboolay halkii nicmadda loogu talagalay taacadda ilaahay in loo adeegsadana insaanka badankii nicamta ilaahay waxay u adeegsadaan cisyaanka ilaahay aayaddaasi waa sidaa weeyaan tarjamadeeda luqada soomaaliga ah aayadda labaadna waxa weeyaan waa tii ku taallay suuratu naxl wain tacuduu nicmata allaahi laa tuxsuuhaa wa ina allaha lagafuurun raxiim ilaahay nicamtiisa haddaad tiraadaan tiro ku soo kooba baa ilaahay yidhi ma soo koobi karaysaan laakiin allaha ina uumay ee iska kiin leh waa dhaafid badana naxariis badan weeyaan halka horena waxaa la yidhi insaankaa la sifeeyey oo sifaadka insaanku ay leeyihiin baa la sheegay aayaddan dambena wuxuu ilaahay sheegay sifaadka ilaahay baa lagu caddeeyey oo waxaa lagu leeyahay haddaad adigu aad tahay daluum dulmi geysta badane ilaahay nicmadiisana inkiray oo daboolay haddii aad tahay haquusan halka rabbigaana uu yahay dhaafid badane naxariis badan weeyaan isaguna
rabbiga allaha kule ee noloshaad haysata kugu deeqay ee inaad dhimanaysana kugu xakumay ee meelaad uga baxsatana aynan jirin naxariistiisa marna ha ka quusan waayo adigu daluum kafaara haddaad tahay isaguna waa ghafuurun raxiim weeyaan ghafuur dhaafid badana weeyaan dembi kastoo dadku ay galaan hadday ka soo noqdaan waa ka dhaafaa waa naxariis badane oo naxariistiisu waa waasic waraxmatii wasicat kulla shay ilaahay baa hi naxariistayda ayaa wax waliba ka ballaaratay baa ilaahay yidhi xadiis alqudsina ilaahay waa kii lahaa ina raxmatii taglibu ghadabii naxariistayda ayaa ka qaalib noqotoo ka adkaatay baa ilaahay yidhi cadhadayda marka ilaahay naxariistiisa waan u baahannahay inuu inoo dembi dhaafana waan u baahannahay inuu inoo naxariisto waan u baahannahay allah inoo dembi dhaafo allahana inoo naxariisto marka naxariista ilaahay casa wajalla ayaanu masjidka ku soo gallay ilaahay waa inoo nicmeeyey waxaan isku baraarujinaynaa ee ugu horreeya waxa weeyaan waa alla ka cabsi inaan ilaahay ka baqo ilaahay cabsidiisu waa dardaarankii ilaahay jalla wacalaa ummadihii inaga horreeyey oo kula dardaarmay innakana laynagala dardaarmin weeyaan fii suurati annisaa ilaahay waa kii lahaa walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu allah ilaa aakhiri alaaya ininka iyo kuwii inaga horreeyey helalkitaabkii ee diimaha aan u soo dejinnay intaba waxaanu kula dardaaranay baa ilaahay yidhi inay dadku ilaahay abuuray ay ka baqaan ilaahay ka cabsadaan taqwaduna macnaha ugu yaray culummada islaamku ay saareen waxa weeyaan wixii macruufa ilaahay ku farayna la kaalay wixii munkare ilaahay jalla wacalaa iyo sharcigiisu ay kaa joojiyeen naga joogso ilaahay nicmadiisa ha u adeegsan maaragtaane cisyaanka ilaahay ee nicmadda ilaahay waxaad u adeegsataa ilaahay wanaagga uu ku faray oo weliba wanaagga ilaahay uu ku faray waa wax innaka danteennaa weeyaan ilaahay marka uu ina leeyahay salaada tukada salaadu waa adiga dantaada ilaahay marka uu ina leeyahay anigay aaminoo i rumaysta iimaankaasi waa adi dantaada ilaahay casa wajalla marka uu ina leeyahay masaajidda ku soo xidhnaadoo kaalaya waa wax adiga dantaada lagu sheegayaa adigaa faqiira ayuha alinsaan adigaa faqiira asagu waa qani ilaahay adigaa daciif oo taag yar asaguse waa qawi alqawiy waa ilaahay casa wajalla adigu makhluuq baa tahay asaguna waa kii ku abuurtay iska kaa lahaa marka ilaahay naxariistiisa marna ka maarmi mayno dadkao dhan ilaahay wada caabudaanna waxba ilaahay uma biirinayaan hadday ilaahay wada caasiyaanna waxba ilaahay kama naamusmayaan ilaahay waa qani istaxyuu min allaahi xaqa alxayaa nebigu sala allahu calayh wasalam waa kii lahaa ilaahay casa wajalla ka xishooda buu nebigu xishoodka ilaahay xaqa uu lahaa inaad ka xishootaan buu nebigu yihi ka xishooda ilaahay saxaabadu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah innaa nastaxyi walxamdu lilaah rasuulki ilaahayow annagu ilaahay waanu ka xishoonnaa ilaahayna waan ugu mahadnaqaynaa bay saxaabadu yidhaahdeen ilaahayna waa ka xishoonnaa dadka lalahaa ilaahay ka xishooda maaha innaka oo keliya magaalada hadalkaa lagu lahaana magaaladeennan maaha magaalada hadalkaa uu ku dhex lahaa nebigu waa madiinat almunawara dadka erayadaa uu nebigu ku lahaana waa asxaabtiisii weeyaan asxaabu muxamadin sala allahu calayh wasalam waa dadka qur-aanka sifaadkoogii wanaagsanaa lagu sheegay ayakoo adduunka dusheeda socdana layidhi ilaahay baa raalli iniga noqday ninka waa dadka dadku nebi maxamed uu ku leeyahay istaxyuu min allaahi xaqa alxayaa ilaahay ka xishooda buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xishoodkii ilaahay jalla wacalaa uu inigu lahaa inaad xaqnimo uga xishootaan uga xishooda buu rasuulku yidhi deedna saxaabadu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah ilaahay waan ka xishoonnaa ilaahay waanan ku xamdinaa ilaahay oo ilaahayna waan ugu mahadinaynaa bay yidhahdeen asxaabtu markaa buu nebigu macneeyey xishoodka ilaahay jalla wacalaa la doonayo
addoonku inuu ka xishoodo waxa weeyaan madaxaya wixii uu weeleeyey inaad ilaalisid calooshii iyo hareerahiga wixii ahaadana inaad ilaalisid inaad aakhirada aad xasuusatid oo qabriga balaayada kugu sugaysa iyo fitanta qabriga kugu sugaysa inaad xasuusatid waman araada alaakhirata taraka ziinata addunya qofka aakhirada doona buu nabigu leeyahay adduunyada ziinadeeda iyo quruxdeeda iyo bidhbidhkeega uu ka tagaa buu rasuulku yidhi an taxfada alra'sa wamaa xawaa an taxfada alra's madaxa inaad ilaalisid madaxa maxaa ku yaalla xubnaha jir bini aadamku ay leeyihiin xubnaha ugu qiimo badan baa madaxa ku yaalla araggii baa ku yaalla aragga ilaahay ku siiye kaga xisho maqalkii baa ku yaalla maqalka ilaahay kaga xisho carabkii baa ku yaalla carabkaaga markaad hadlaysa hadalkaaga ilaahay kaga xisho maskaxdii baa ku taalla caqligaaga ilaahay ku abuura kaga xisho waa inaad ilaalisaa xubnahaas waa xubno muhiima ilaahay baa ku siiyo kugu deeqay inuu kaa qaadana ilaahay waa karaayo ogow ilaahay uu karaa dad badanoo maanta adduunka dusheeda inagula nool waxaad arkaysaa nicamtaasoo dhan waxay u adeegsanayaan ilaahay inay ku caasiyaan araggii waxay u adeegsadeen ilaahay inay ku caasiyaanoo waxa uusan ilaahay raalli ka ahayn bay ku eegayaan maqalkii waxay u adeegsadeen qaarkeen waxau ilaahay raalli ka ahayn bay ku dhegaysanayaan hadalkii waxay u adeegsadeen hadalle ilaahay uu raalli ku ahayn bay ku hadlayaan waxay nicmada ay haysteen oo dhan waxaa laga yaabaa inay u adeegsadeen ilaahay casa wajalla cisyaankiisii ilaahayna waxa uu nagula socdaa innaka waa dulqaadkiisa weeyaan ilaahay maxuu nagula dhaqmaa yaa dulqaadkiisa uu karay ilaahay dadka hadday aragga ku caasiyaan aragga inuu hal habeen ka qaado ilaahay waa karaa ila dadka u badan maanta mujtamaceennu waxaa laga yaabaa inaan indhaheenna inta badan aan ku eegno wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn haddana waagii markuu barya waxaad soo kacaysa adigoo iska indho qaba waxaa laga yaabaa maqalka inaad u adeegsatid waxuusan ilaahay jalla wacalaa uusan raalli ka ahayn haddana waxaad soo kacaysaa adoo haddana maqalkii uu kuu shaqaynaayo qul ara'aytum in akhada allaahu samcakum wa absaarakum wa khatama calaa quluubikum man ilaahun gayru allahi yaatiikum bihi ilaa aakhiri alaaya bal ka warrama baa ilaahayna leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay ku yidhi u sheeg bani aadamka waxaad ku tidhaahdaa ilaahay jalla wacalaa uu karaaye hadduu aragga inigala tago oo maqalka uu iniga qaado oo qulubtiinna ilaahay taabacuu u fulo ayaa iniga soo qaadi kara ilaahay nicmaddaas uu karaa ilaahay hal mar keliya dadka inuu aragga kala tago ilaahay waa karaa oo magaalada waagu u baryo dadkoo 80% wada indhoolayaala yaa kuu adeegi yaa dheriga kuu karin xanuunkii kaduudiyaha ahaa ee dadka jajabinaya ayaa reer buu ku dhacay odaygiibuu ku dhacay islaantiibuu ku dhacay inantiibuu ku dhacay shaaqiyadiibuu ku dhacay tuug baa u soo dhacay reerkii oo wada kici karila ayaguna wax biyo u soo dhaamiyay doonayaan islaantii baa aragtay tuug aqalkii alaabta guranaya markaabay tidhi hooye waxaad doonta iska guro biyahuna waraabi bay ku tidhi waa kaduudiye waa xanuun halisa weyn ilaahay haynaga hayo aamin dhahada waa dhoweytuu jabuuti soo maroo dadku aqalladiiba ka bixi kari waayeen xubnihii unbaa shaqayn waayey markaasuu qofku noqda caag gebigiisiiba caag meel fadhiya oo weliba xanuunsan oo laxawsan oo dhaqaaqi karayn markaasay tuuggii baa madad laga dalbay madad iyo gargaaroo le bal noo gurmo oo waxaad doonta iska qaado oo bal maaragtaane biyana waraabi markaasuu ka naxay baa layidhi isagiibaaba ilaahay qalbigiisa naxariis soo geliyey wuxuu ihi war kuwan haddaad wax ka qaadato aday balaayadu kugu dhiciye bal biyaha iska warwaraabi biyihiibuu waraabiyey kii baytalmayga doonayuu baytalmayga geeyey jaarkiibuu u tego wuxuu ku yidhi war dadka xaafadan kaduudiya ku dhace u gurmado wax u qabto cid dheriga u karisa u diray buu yidhi anigu waa ka tegey bal ka warrama ilaahay tabaaraka wa tacaala maqalka hadduu dadka ka wada qaado habeen keliya laakiin inta badan dadku maanta maqalkii waxaan u adeegsanay wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn araggii waxaa loo adeegsaday inta badan waxausan ilaahay raalli ka ahayn carabkeennii waxaan ku hadlaynaa waxausan ilaahay raalli ka ahayn weliba waa ilowsannahay aalaadkan inagu rakiban inay kaamera ay leeyihiin ay wax duubayaan
ومالك قيامها أي ورمي دون بك قيامنا ذاتك إنت بدل ما أنت ويلوسيه إيشان لنا عنا وإحنا واتكو إيجاسا وهذا لفت يجو وحبيت دوبة ساي الله صعود هذا وحني مكان بسول جديد سنة وحوض الضوبة يعني أدو تلا الله صبح وتفرد دونتا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون مالك قيامها وحي إلهي ونوغشيغي أعداد إلهي عز وجل ذاتك أديود دوشير إنتي جوغين أعداد إلهي أها بانك قيامها يا الله سوجو جندونا والله كيني دونا يكون ملائكتو حقا دمائك دراعيسو مركاسا إلهي مركا بانك قيام الله كينو وحا مرقا كبو حني دونا أرقوغي يمقل كوغي جركوغي مركاسا الأورن دونان أيا بانك قيام مركا كدقاقان النار تلقوة الطورو أفكوها الليين الله فرو أيا أورن دونان محال مرخاتي فرتين ومرقا أنوغو حسين أنا أقول إنك أن يقرن إنني أستريني مرقا قعنتي اللبتي أيا ديمتي وهذا شعورنيسا يدكتي إيشي ما هل شعورنيسا أنا كوس كمان نهلل ما نهلل جرنا وأنه قيديني كواح والله بك أهليها ما تلقاها اللي يبي أورنيا أسواكما الله رب العالمين إلهي بك بواجي مرقا أورنا أساقا إن السمايو إن أبو ري ساقنا حقي سوادو صور نقطين حشود إلهي ودب لوغا حشود وحو نبيكو كم معنى عليه الصلاة والسلام مدح يوحي وهريري كو يالا إن لا إلاليو ولغا إلاليو مارتانا إلهي عصيان كيسا علوشا يوحي هريري ومحي علوشا هذا إن مارتانا مرول باتك إلالي سال لغمد حارانا خاصة مادة مساجد كان سوق بلعسك أيوكو بحيالا لكن وحني حسوسنا يا مقالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يري كنا ندعو 70 بابا من الحلال مخافة من الحرام أن ندركه مخافة أن يدركنا الحرام وحول أبي بكر الصديق تضبات الباب تضبات كالباب كسب قودو ويهي حلال أيان أبتغي نبويري أنك وكبغين هلك حرانين نغسوغش وحوال بعلوش كرد معها ألقى واحد مرينيسو وإنه هذا وحلالا هذا الحلال عناء النقطة عابد بالنقونيسا كن ورعا تكون عابدا من أبا هريرة رضي الله عنه وهذا نقطة قف حلال مرتاع وحلال عناء النقو ذاتك أنك أبعد عبادة في عن بالنقونية وقولك نبينا عليه الصلاة والسلام ياها اتق المحارم تكون أعبد الناس وإلهي كحرمي ونكدروا ذاتك قفك وعبادة الصوبانة وعبادة في عن بالنقونيسا عبادة عابد نمدو ماها سيدا لوكال الصلاة بدن يهي ماها سيدا لوكال الصوم بدن يهي ماها سيدا لوكال القرآن أخرس بدن يهي ماها سيدا لوكال حج بدن يهي ماها سيدا لوكال عمرة بدن يهي بل عابد نمدو وحويان وسيدا لوكال ورعصي يهي ويان ورع عنادها تقف على المرتاع تضباطا كسبي وتضباطا كوب أي حلال أيهين أي أبو بكر صديق وحولي أيان اسكدا فيني أنا وكبغينا ماشاسي حرام إني نغسو غشانا وكبغينا علوش إلالي وحرامتا كإلالي وحق الناس كإلالي حسان بن أبي سليمان سلف هذه الأمة بكمدها وننك اللي يري تضباط لحد السنة بين عبدالك مدقين أبو جيفانا يو فردقو كسي حنايي لحد الكاسنة نافشل سنتو قورا عدي عدفي سمعون لحدا كاسا نضاد بيم معانو نفتو ايضو تمسيني عنتدنا انجيكسن بلاد دفنك ايو عنايي هرددنا فردق ايو كسي حنايي بيها بيلك كلل ايو عبد جري مالنتو بنتينا وحا لغو اركي منام با لغو اركو لغو يري يا حسان ما فعل الله بك من وراقي خير لغو اركو لغو يقانو وخير لغو تومي عيادة هيدي ربك محاد كلا كلتي بالنوشيك
markaa uu rabbiga khayr baan kala kulmay laakiin waan xabisan oo jannadii ma geline albaabka jannada laygu hayaa buu wali ma galin jannadii markaas lagu yiri maxaa jannada aad u gal weyday oo lagaaga hayo lagaaga xabisay bal noo sheeg wuxuu aqalka dariskayga ayaan ibrada maaragtaanay warqadaha kutubta marka qoro kutubta markaan baabo asanifo warqadaha kutubta irbada ku qorayay ayaan jaarkayga ka soo qaato ka soo caariyeystay anoo aanan celin ay naftu iga baxday xaq bani aadan intaaba ay soo gashay intaabana jannadii leegaga xabiso albaabka jannada lagu hayaa buu waa irbad yar ayaa jannadii looga xabaasay ninka caabidka ahaa ee 60 sano salaat layl aanan ka tagin jiif dhinacana dhulka aanan dhigin hadduu seexanayo baa laydhi ama gidaar ama derbi buu ku tiirsanayey oo tiir buu ku tiirsanayey ama fadhiga tarabbuca laydhaa buu ku seexanayay baa layidhi irbad yar baa loo xabisay oo jannadii looga xeeyey marka ayuha almuslim khusuusan ayuha taajir ayuha almuslim xaquuqda bini aadamka aan iska ilaalino nabiga sala allahu calayhi wasalam ghazawaadkiisii ghaswad ka mid a inay uxud ahayd baan u malaynayaa ayaa saxaabadu yidhahdeen ninkaasi waa shahiid waa shahiid waa shahiid markaa buu nabigu uhi kallaa innii ra'aytuhu fi nnaar buu nabigu uhi kallaa inuu janno galo oo uu shahiid noqdo iska daaye asagoo naarta ku jiraan arkay buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam naarta ayuu ku jiray oo lay tusay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa ninka dagaalkii balaayuu ahaa xagga dagaalka oo gaalo badan buu laayey oo saxaabada agtooda shahiid buu ahaa janno galay oo shuhadada waad garanaysaan walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illah bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun ilaa aakhir alaayaat ayaa ilaahay ku sheegoo la yidhi inay dhinteen ha u malaynina maxaa yeelay shahiidka gaalada gacantooda ku dhintay ee dagaalka jihaadka dhexdiisa ku dhintay waxau arwaaxdiisu ila agtiisay taalla kaabuu nabi maxamed uu leeyahay may shahiid maaha hadduu xaggiina shahiid ka qoran yahay xaggayga waa ahlannaar buu nebigu naarta ayaa ku arkay isagoo ku jira waa la baaray ninka dharkiisii iyo badeecadiisii baa la baaray xoolaha muslimiintu ay soo khaniimaysteen waxay ahayd nebiga in loo keeno oo nebigu si cadaalad leh uu dadka muslimiinta ugu qaybiyo ayay ahayd inta aan nebiga loo keenin ee qismadii nebigu aynan dhicin ayuu go'ay u fiicnaa buu kala hadhay oo gogashiisa ayuu ku dhex ritay intaasuu naar ku galay baa la yidhi ninkaasi intaabuu naar ku mutaystay xaqa ilaahay uu kugu leeyahay hadduu doono ilaahay uu kugu cadaabi hadduu ilaahay doono uu kaa dambi dhaaf uu kaa dhaafi karaa laakiin xaqa bini aadanka inaad celisid mooyaane ilaahay dhaafi maayo baa la yidhi marka ilaahay tabaaraka wa tacaala hanu soo noqono hanu toobadkeenna ilaahay ku salliya rasuulka waa dhowatana anoo nool bay yidhahdeen uu dhintay marka waan maqlay laakiin aniga aakhirada unbay sii xasuusiyeen iyakana ilaahay ha u dambi dhaaf aamiin dhahada